Barasaabka gobolka Gabiley Mudane Maxamed Xaaji Axmed Indhabalac ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inuu joojiyay karfadhi aan caadi ahayn oo iskugu yimaanayeen golaha deegaanka ee degmada Gabiley taasi oo maalnimadii shalay toole u shaaciyay barasaabka gobolka Gabiley in maalinta Isniinta karfadhi aan caadi ahayn iskugu yimaadaan hoolka dawladda hoose ee degmada Gabiley barasaabka oo isagoo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa kamid ah hadaladiisii gudoomiyaha gobolka waxa weeyaan dhammaan horta inuu mas'uuliyadda waxa weeyaan inuu wixii conflict dalal amaystiro hadii ay noqon lahayd khilaafaadka ka yimaada golaha dhaqanka ee gobolka khilaafaadka ka yimaada degmooyinka ama gudoomiyaasha ha noqoto ama tuulooyinka iyo bulshada kala duwan inuu adeegayno golayaasha ayaga laftigooda wixii tabasho dhexdooda ah inaan dhamaystirno oo aan waxyaabaha ay qarankeena ku dhisan yahay gobolka runtii waxa jirta maalmo dhaweytole in qaar ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Gabiley ay runtii qoraal ay u gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha runtii qoraalkaas oo ahaa tabasho iyo cabasho ay ka garanaysa qabaan maamulka ama golaha deegaanka ee doorteen maayarku iyo maayar ku-xigeenka iyo guddida fulinta ay runtii ay kaga cabanayeen cabashadaasina runtii ahayd markii hore golay ka tirsaneen golaha horta uu ku soo bilaabmo waxay tabanayaan ay gol ahaan horta keenaan markay taa ku qanci waayaan in ay u keenaan barasaabka waanu ka ballanay waxaanu ku ballanay markaa inaan anigu marka ugu horeysa dhexdhexaadintii soo keenkii sameeyo iyaguna way ila qaateen runtii rag mudakara ayay ahaayeen saasaan horta ay ku timid qoraalkan warqadda aad ku aragteen bulshada runtii anigoo ka maqan xafiiska warshaga hawl ku maqnaa caasimadda oo jeclaa inaan kasoo laba jeer noqdo ayaa xafiiskayga warqad shirkayga ka daba timid oo wixii aan isla qaadanay ahayn ayaa la keenay oo aan meesha oolin oo ah in la qabto maayarkana loo geeyay warqad anigana xafiiskayga kale wasiirkana loo geeyay warqad kale oo odhanaysa kalfadhigii hana loo qabto oo maayarkan muddo markaa eedeynayna runtii taasi waxay noqotay dadkii ma garanaysaa ama xubnihii cabanayay in aanay u qorqorsanayn wixii anigu aan waday iyo wanaagii marka taasaa keentay marka inaan joojiyo bulshadana u iftiimiyo runtii cidda ka baxday ballantii iyo heshiiskii iyo turxaan bixintii ay janaaxa tahay marka runtii arrinkaasi waan joojiyey runtii waxaanan doonayaa in aan wasaaraddii in arrinkaa lagu celiyo si ciddii qaadan weyday ma garanaysaa waanwaantii iyo wanaaggii u gudbiyo una bayaaniyo marka taasaa keentay Khadar Cabdullaahi telefishinka caalamiga Somali News TV magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley.